iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha laysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa alxamdu lilaah wahanaau lilaah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda 275 qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa aladiina yaأkuluuna kuwa cunaya buu ilahay yidhi arriba waxa ribada loo yaqaano laa yaquumuuna isa soo taagi maayaan qiyaamaha ilaa kamaa sidii unbay isu taagayaan yaquumu uu isu taago alladii qofka yatakhabaduhu uu derderaya ashaydaanu shaydaanku qofkuu derderayo min almasi waali uu ku sameeyey daraaddeed daalika arrintaasi waxay ugu dhacday biannahum qaaluu iyagu waxay idhaahdeen innama albaycu iibku waxa uu la mid yahay midlu riba ribadoo kale wa axalla allaahu lbayca ilaahayna wuxuu xalaaleeyey iibka wa xarama ariba ribadana wuu xaaraantinimeeyey faman jaaءahu qofka ay u timaado mawcidaة min rabbi waana ilaahiisa xaggiisa ka timi fantahaa iska daaya falahu maa salaf wuxuu leeyahay wixii hore wa amruhu ilى اllah arrinkiisuna ilaahay buu u yaallaa waman caada qofka ku noqda ribada faulaa'ika asxaabu الnaar kuwaasi naartay la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduun way ku waarayaan yamxaqu allaahu ribaa ilaahay ribada wuu baabi'iyaa wa yurbi sadaqaat sadaqooyinkana wuu kobciyaa wallaahu laa yuxibu ilaahay ma jecla kulla kafaarin mid gaalnimo badan ahiimin oo dembiile ah ina aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa camiluu saalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey wa aqaamuu salaata salaadana oogee dhammaystiray wa aatowu zakaah sakadana quudhay ee dhiibay lahum waxay leeyihiin ajruhum abaalkoodii cinda rabbihim ilaahooda agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan aayaadkan dhowrka ah ee soo socdaa waxay ka warramayaan nidaamka wax soo saar ee qalloocan ee islaamku uu diiday oo ah wax soo saarka ay ku jirto ribada iyo xaaraantu si gaara aayaadku ribada ay u xaaraantinimeynayaan marka la eego munaasabadda ka dhaxaysa aayadihii hore ee infaaqa iyo waxbixinta farayey iyo aayaddanoo ilaahay uu ku xaaraantinimeeyey ribada waxa ilaahay uu soo faray waxaa la bixinayaa inuu yahay wax dayiba oo xalaala waxa xalaasha ah ayaa halkaa hore uu soo dhiiriyey wixii xaaraantaa buu ka digayaa markaa iyo xoolo ay xaaraantan iyo ribadani ku jiraan inaanu infaaqii iyo waxbixintii galaynin si kale haddii loo dhigana halkaa hore wuxuu qur-aanku ka soo hadlay sidii maalka loo bixinayay xalaasha ahayd halkanna waa halkii laga soo kasbanayay xalaasha ahayd waana labada arrimooda qiyaamaha qofka la weydiinayo maalkiisi baa la weydiinayaa min ayna ktasaba halkuu ka soo shaqaystay wa fiima anfaqa iyo wixii uu ku bixiyey meeshuu ku bixiyey ribada way isticmaali jireen carabtu waktigii jaahiliyada ee ka horeeyey islaamka oo qofka maalqabeenka ahay qof kalu wax siinaya amaaday u isticmaali jireen taasee u badnayd marka waxay odhan jireen marka wakhtigii gaadho ataqdii am turbi miyaad soo celin doontaa dayntii mise muddadaad dheeraysanaysaayoo waad kordhin doontaa dulsaarkii qofku isagaa markaa ka jawaabaya waxaa laga yaabaa kordhintaasi inay noqoto shayga labanlaabkii iyo tobanlaabkii
hadduu bil qaatay kolba siduu u kordhinayo inay 10 bilood ku gaadho 10 jeer laabo waa ka ilaahay aayaddaa soo dejiyo uu leeyahay walaa ta'kulu riba adcaafan mudaacafa ribadii ha cunina iyadoo sii laabantay qur-aanku sidaa u xaaraantinimeeyey aayadahani waa aayadii ugu dambeeyey soo degay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda aad buu uga degay shirweynihii ugu dambeeyey xajka xajatulwadaac waxa uu lahaa kullu ribo kastoo jaahiliyadii jirtay waa mowduuc taxta qadamay waa laga guuray cagtan hoos geliyey ribada u horeysa la dhaafayaana waa ribadii adeerkay cabaas ibnu cabdilmudalib oo ganacsado ahaa wuxuu dad hadda ku lahaa waxba kama jiraan sidaas ilaahay uu ku xaaraantinimeeyay ilaa qiyaamaha xaraam ku tahay oo lagaga hadhaya marka baasha ribada la yiraahdo adraar iyo dhibaatay leedahay aad u badan adraarteeda iyo dhibaatooyinkeeda waxa kamid ah inuu ugu horeyn bay ilaahay ogeysiiyay dadka riba cunayaasha inay rabbi iyo rasuul la dagaalamayaan ilaahay iyo rasuulkiisa qofka riba cunaha la dagaalamaya hadduu rag yahay hadduu dumar yahay hadduu dowlad yahay hadduu sharkad yahay iyo hadduu shakhsi yahayba waxaynu ku haynaa aayaadkaynu ku arkaynaa waxa ribada maalku ku jira inuu yahay baraka la'aan ribadu baraka la'aan bay dhashaa yamxaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaat adraarteeda waxa kamid ah cadam istiqraar dadka ama ummadaha isticmaala ribada ma saldhigaan ma degaan qalaq bay leeyihiin aayadda culimada qaarkood baa ku fasiray laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas waa nolol aan sugnayn oo derderan dadka riba cunayaashu waxaa ku badan cudurka istarastiga la ydhaa iyo qulubka iyo warwarka iyo u qaadan waaga oo keenay dadkii ribada cunaya inay isdilaan marka istiqraar la'aantaasina wax jiro wey waxay leedahay adraar iqtisaadiya oo xagga dhaqaalaha dhib ku leedahay dadka ribada qaataa waxa ay dulsaar ku yihiin dadka kale oo qofku intuu dad wax u qaybiyo ama ahyuun buu iska fadhiisanayaa dulsaarkoodu buu cunayaa dad badanoo waxay inoo soo saari lahaa ayaa xidhan oo xaniban oo xoolaheennii cunaya dhibaatooyin xagga akhlaaqdaana way leedahay yaakulu alqawiyu daciif qofka awoodda badan ee awoodda dhaqaale leh ka daciifku buu cunaya akhlaaqda wanaagsani waxay sheegaysay ka itaalka daran in la caawiyo ka awoodda leh caawiyo dadka xoolaha leh waxay leeyihiin waxba ku caawin maynee waxa iyagaanu dulsaar ku samaynaynaa marka isagoo warwarsanoo duruufina deynta u geysay ayaa la tuujinaya sidoo kale waxay leedahay baasha ribada la yiraahdo adraar ijtimaaciya xagga bulshada dhexdeeda oo waxay keentaa waxa loo yaqaan muranka qofkii wuxuu qaadan kari waaya waa sidii qamaarka oo kale oo dulsaarkan faraha badan markooda si dalaq buu odhanaya si dhib yar goodho markay intee oo jeer laabanto ayuu fakanayaa dabeedna waa la dagaalamayaa waa la isxidhxidhayaa waa la ismaxkamadaynayaa balaayadaas oo dhan baa daba taagan marka taraabudkii iyo isku xidhnaantii xagga bulshada way la dagaalamaysaa bahasha ribada la yidhaahdo adraarteeda waxaa ka mid a maalkii muslimiintu gacanta cadowgu gelayaayo wax badan oo xoolaha muslimiinta baananka gaalada yaallaan ribadana way uga tagaan hubbaa loo soo siiyaa gaalada muslimka lagu laayo ama kaniisadaha la siiyaa nimanka boobabka ah ee mishankee diinta kiristanka faafinaya si loogu wareejiyo si kale haddaynu dhigno casrigan aynu joogno yusama alisticbaad اljadiid addoonsiga casrigaa baa la yidhaahdaa amaahda ribada wadata cid walba sanka laga gelinaya dowladda shaksiga ka qaxoontiga markuu yar saldhigo ayaa la odhanaya baankan wax ka amaaho dariiqo dadka lagu xidhxidho wey markaa hadhow waxaa la odhanaya mabaadida yadaad fulin sidaa maad yeeli wixii aan kaa dayno aan kaa saa kaa yeelo waa musbaar yaroo dadka lagu gujiyo lagu gorgortamo adraarta ama dhibaatooyinka diintay leedahay bay ka mid tahay nacdal inuu qofkii waa malcuun riba cunuhu ama ummadda ribada cuntaa waa malcuuniin nebiguna uu nacdalay calayhi salaatu wasalaam aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayh aw shaahida qofka ribada cunaya ka cunsiinaya ka qoraaga ka markhaatiga intaba nacdal baa dusha looga tuuray
dadka riba cunayaasha ah hadday ribada ka tanaasuli waayeen dowladda islaamku way la dagaalamaysaa rasuulku qoraal buu u sameeyey sala allahu calayhi wasalam asxaabigii maka ka madaxda ahaa cataab ibnu asiid la odhanayey waxau ihi qolyo la yidhi ribadii bay ka hadhi waayeen markii la xaaraantinimeeyey soo qabqaba buuri oo la dagaalan haddii ay ogeysiis dagaal ogeysii buuri sidaa ilaahay rabbi iyo rasuul dagaal bay idin ogeysiinayaan adiguna dagaal ogeysii buuri nimankaasi haddii ay iska dayn waayaan waxa ribada loo yaqaano waxay leedahay suu'ul khaatima waxyaabaha ilaahay khaatimada uu qofka kaga xumeeyo wey waxay leedahay cadaab barsakhiya intaan kii aakhiro la gaadhin cadaab caalamka hoose ee qubuuraha qofkii lagu cadaabayo markii adduunkii uu ku soo cadaabnaa qabriguu ku cadaabay tii aakhirana dee waa kan ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen la dheelmiyey ilaahay wuxuu tusay nin webi dhiiga ku dhex jira webiga dhiiggaa markuu sidhaado ka soo bax ee qarka uu ku soo dhow yahay mid baa webiga qarkiisa taagan oo dhagax weyn afka u gelinaya bartankiisuu ku noqonaya godkii dhiigga webigii dhiig ahaa buu dhexda ugu dhacaya sidaasuu ku jirayaa weligiiba markay malaa'igtii u fasiraysayna waxay dhahan waa riba cunayaasha oo dhiiggii dadka sidaa u jaqayay marka adraarteedu iyo dhibaatooyinkeedu saasay u badan yihiin dib haddii ay ugu noqonno mustafaadaadka aayaadka yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu riba aladiina yaakuluuna riba dheh dadka ribada cunaya cunitaan buu halkan ilaahay uu sheegay miyay xalaal noqonaysa hadduu daara ku dhisto ama dhar ku iibsado ama dad kaleba siiyo maya laakiin cunitaankii waxaa la mida isticmaal oo dhan waxa cunitaanka halkan ilaahay uu sheegay cunitaanku waa waxa u badan ee wax loo qaato dadku waxay isleeyihiin ama imika cun ama mar dambe cuno calafkaa iyo cunadaasubaa u badan waxa dadku isticmaalo si kale haddii loo eegana waa nooc ceebayna ha cunina wixii xaaraanta ahaa markaad xaaraan cunto wuu sii foolxun yahay ribo waxaa la yidhaahdaa taa aynu soo sheegnay waa lacagta la isamaahiye dulsaar kale ama waa amaah kastoo dheef soo jiida waa ribada amaahda gasha ribada labaadna waxa weye ribada iibka gasha wixii lacaga iyo wixii cunno ah oo labadii shay ee isku midka ahaabaa la kala badinaya ama waan la kala qaadanayn si dhaqso ah tadkhul fi lmadcuumaati waannaqdayn lacagta iyo raashinkay gelaysa riba alfadli waa riba naasiya ribadii amaahda iyo tii kala badinta labada qayboodba way noqotaa faa'iido badanoo qofku alaabtiisa uu saaro ribo lama yidhaahdo siday dadka qaarkood u yaqaanaan macaash badan in la saaro uu saari karaa qofka bacmushtariga laakiin inuu dadka u naxariista un wey laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas qofku shaydaanku derderay siduu isu taagaa dee u dhacdhacaa waa qof suuxdin leh silicsan kolba circiraya marka culimadu waxay u badan yihin calaamada inay tahay calaamo laga muujinayo rima cunayaasha oo maalinta qiyaamaha lagu garanayo qofba ilaahay calaamo iyo ceeb buu ka muujinaya halkaa markay ka soo baxaan maxsharka iyo maalinta ilaahay la hor taagan yahay astaantaasay leeyihin oo dad wada heedada ahoo sidii xoolihii muqloobay ee sunta shilinta la ciirciirayay saasoo kale heedada u yihi marka waxaa la garanayaa kuwaas inay yihiin kuwii dadka dhiiggooda cabi jira ciirciirkaasi noloshan adduunyadana wuu noqon karaa bay leeyihin culimada qaarkood oo nolol fadhida maaha beriyo dhoweyto waynu garan karaynaa oo sanado aan badnayn ay ka dambeeyeen gebiga caalamkuba uu dawakhay weliba caalamulkufr iyo baanankii ribada isticmaali jiray waa wada kaceen waxa aayaddu ay noo muujinaysaa shaydaanku inuu dadka waxyeeli karo siday dee bani aadamkuba wax isu yeelaan oo qofkii uu derderi karo oo markaa maskaxdiisii iyo jidhkiisiiba uu saamayn karo waa ka ibnu qayim raximah ullah markuu ka hadlay uu leeyahy waalida qofka ku dhacda ama suuxdinta ama maskaxda midina waa mid jidh ahaana midina waa mid ruux ahaana markaa ta jidhkunbay daweyn karaan buu ihahdaa ruuxda dadka dhakhaatiirtu laakiin ta ruuxda culimadaa daweyn karta waanay jiraan dad dafiray sida firqadaha daalada almuctasila oo kale inaanu shaydaanku qofkii galayn wax la yeeli karayn
waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayno waxa ka mid ah aayadda nimankani sida yuhuudda iyo gaalada u xalaashadeen ribada waxay ka dhigeen ribadu inay ka xalaalsan tahay iibka aan ribada lahayn iibka aan ribada lahayn iibka ribada leh iyo ribada dulsaarka ah ayaa ka xalaalsan waxaa laga fahmayaa inama albaycu mithlu riba waxay yidhahdeen iibku wuxuu la mid yahay ribada waxay ujeeddadu noqonaysaa xagga xalaalnimada ribada asal ku aba iibkana waxaa la odhan karaa wuu raacayaa waa la mid halkaasay ka gaadheen marka taana waxaynu ka fahmnay xumaan wadayaashu xaaraanta aada u xayeysiiyaan had iyo jeer ilaa ay dadka uga dhigi karaan inay xaaraantu ka xalaalsan tahayba xalaasha مشاعرها قبل وحول ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه دول سفين يا أبارو وحول دول كاسي عركي بابا دولكي بابا عرك الله من دغيب هل كي لقى أوران لها هل كوكا أوران لها عركي با حقا عيرضة عيدة دولك الله من دغيب لأن دولك هي عيد لها يا وحول باشي سيدي أبارو نقطع عركي دولكي سقوا يا قاعدين دولكي بابا عركي الله من oo cirkii baaba casaankii iyo ciidii iyo boorkii asal ku ah waxaynu ka fahmaynaa aayadda xalaashii xaraanta inuu ilaahay hayo subxaanahu wa tacaala wa xalla allahu albayca wa xarama riba sidaasay yidhaahdeen iyagoo aanay waxna xalaalayn karin waxna xaaraantinimayn karine cidda waxna xalaalaysa waxna xaaraantinimaysa ilaahay weeye ilaahayna ribadu xaaraan ka dhigay beecana xalaal buu ka dhigay aan ribada lahayn ولماذا waxay leeyihiin waxa laga fahmi karayaa aayadda faman jaahu mawcidatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah aayadda waxay sheegaysaa qofkii ribada ka joogsaday markii la xaaraantinimeeyay wixii hore xoolihii uu ka dhaqday ribada iyo wixii uu ka cunay soo celi loodan maayo waa loo deynaya ilaan arintaas waxay intii aan la xaaraantinimaynin alfay wixii uu cunay waa calfaday hadduu de halkaa ku joojiyo wey oo uu toobad keenay fantaha marka haddii qofku isaga oo aan ogeyn shaygan xaaraantinimadiisa ayuu ka shaqaystay markii culimadu u sheegeen ama cilmi ahaan uu ku ogaaday waxaan inuu xaaraan yahayna wuu joojiyey oo uu ka toobad keenay wixii hore calfay baa markaa laga fahmayaa bay leeyihin aayaadku waxay tilmaamayaan intaan aayaadku soo degin dadka xilmo saarayn marka qofkana maalintu ogaado waxaan inuu xaaraan mesela waxyaabahan balwadoo kale u iibin jiray qofkii tusaale balwadoo kale u iibin jiray waxyaabuu ka faraqabsaday maalintii uu ogaadee loo sheegay la yidhi waa xaaraan ayaa wuxuu yidhi anuu xalaal baabaan u haystee mar hadduu xaaraan iyo joojiyeyba intii hore waa loo deynayaa bay leeyihin maalul xaraamka wixii hore qofku miyuu haysan karaa mise ma haysan karo haddii isagoo og xaaraantinimadiisa uu dhaqayay oo uu kobcinayay oo badinayu saa ku dhaqday waa isdhaafinaya laakiin haddii aanu ogeyn oo markuu ogaaday uu joojiyey intii hore uu qaadan karaabaa laga fahmayaa bay leeyihin aayadda waxa aayadda aynu ka fahmaynaa ribada iyo xaaraanta oo la dayn waayo in laguba gaaloobi karo wallaahu laa yuxibu kulla kafaarin ahiim kafaar ahiim waa mid gaalnimo badan oo dembiga badan oo dembi badan qofka had iyo jeer xaaraantan cunaya marka wixii xaaraan u arkaya qofka hadduu yidhaahdo sidaa gaaladu bay yidhaahdeen waar idinkunbaa waxaan sheegaye faa'iidada caalamku casrigan aynu joogno waa ribada adeer qaar wadaadaanbaa dadka ribe iyo waxu sheego diinta meel dambe ku celinaye diintu waa casri mar walba horey u soconaysa faa'iidada ma diidayso waa faa'iida waxani hadduu sidaa u macaaneeyo u xalaashado uu ku gaaloobaya oo culamaa caqiida waxay isla waafaqsan yihiin shay qur-aanku uu sheegay oo xaaraantinimadiisa la isku waafaqsan yahay qofka xalaashada inuu ku gaaloobayo waxyaaba aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid a aayaadka aynu akhriyayno xaaraanta waxaa qofka u diidi karaa caqiido wanaagsan iyo cabsi alleh iyo camal wanaagsan qofku hadduu caqiido fiican leeyahy إن الذين آمنوا عمل في عنا سمينا يلا أقبلي وعملوا صالحات عبسي لنا أوليه وتشوشين كراوحة لكن قفان عمل إيه عقيدة إيه عبادة مدنا لها نوع عيا لا لا إلا قاعدة
sacaadada iyo nolosha wanaagsanina waxay ku jirtaa taa ilaahay uu sheegay oo ah inay ilaahay rumeeyaan addoomuhu ka amar qaataan u camal falaan xaaraanta iska daayaan lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun mustafaadaadkaasina waa kuwaynu ka faa'iidaystanayna aayaddaynu ka qaadanayno hada ma aquluhu waastagfiru allah allahu subxaanaه watacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان